ma uusan doonayn in isku kalsoonaado oo uu ahaado Michael Jackson ee wuxuu rabay wax kale. Cimrigiisa oo dhanna wuxuu ku dhameeyay sidii uu cid kale isaga dhigi lahaa, wuuna iska dhiga. Waxaa hadalka kore yiri qoraagii qoray buugga taariikh nololeedkii Michael Jackson ama marlaaragii heesaha boobka. Waa sidii ay ugu yeeri jireen taageerayaashiisii. Tilmaamihii sheegayay in uu qof Afrikaan ah yahay Michael Jackson dhammaantood wuxuu ku tirtiray qalliino isqurxin ah. Arrinta yaabka iyo makaga leh ayaa waxay tahay haddaad isbarbar dhigto sawirada Michael Jackson markuu 8 sano jir ahaa iyo markuu 30 sano jir ahaa, marna is oran maysid waa isla hal qof oo gabi ahaanba jirkiisi waa u bedelay oo qof kale ayuu iska dhiga. qof aan ogeyn Michael Jackson inuu qalliimo badan oo isqurxin ah isku sameeyay, marna kuma uusan fakareen inuu ninkan ahaa mar nin madow oo Afrikaan ah ee wuxuu oran lahaa waa nin cadaan ah oo sidaan ku dhashay. Pamela Lipkin oo ah dhakhtarad qalliinada isqurxinta qaabilsan oo mar u warantay TV-ga ABC News ayaa tiri Michael Jackson qalliinadii faraha badnaa ee xaddaafka ahaa ee uu sankiisa ku yareynayay wuxuu ku sigtay inuu gaaro marxalad uu sanka ka neefsan waayo. Michael Jackson yaraantiisii wuxuu karhay oo uu nacay wejigiisa oo lahaa finan ama nabaro yaryar ah. sidoo kale sankiisa ayaa aad u weyn oo kuma uusan qanacsanayn ilaa walaalihiisa ay ugu yeeri jireen sanweyne. markii ugu horeysay isaga oo 21 sano jir ah ayuu sanka oo mar jabay qalliin iskaga sameeyay, laakiin qalliinkaas ma noqon kii u dambeeyay ee wuxuu noqday tusbax furtay bilowgiisii. waa dambe wuxuu qalliino iskaga sameeyay daamanka, sunniyaha iyo qalka. si caadiya ayuu qab abuurkiisii hore u wada bedelay. waa dambe wuxuu bilaabay inuu bedelo midabka jirkiisii ee madow ahaa isagoo cadaan u rogay midabkiisii. laakiin Michael Jackson wuxuu ku doodi jiray inuusan midabkiisa bedelin, laakiin uu ku dhacay xanuunka baraska loo yaqaano kaasoo qofka midabkiisa cadeeya. dhakhtaradii aan soo sheegnay ee qalliinada isqurxinta qaabilsaneed ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in markii uu barasku ku dhacay Michael Jackson uu isna go'aansaday inuu dhammaan jirkiisa wada cadeeyo si aan loo dareemin xanuunkaas. markii aan hadalka soo koobno, fanaankii caanka ahaa Michael Jackson wuxuu xididada u siibay qaab abuurkii uu ku dhashay, wuxuuna noqday qof kale. dhammaan isbedeladaas isagoo ku sameeyay jirkiisa, haddana weli waxaa wejigiisa laga akhrisan jiray inuusan ku qanacsanayn qaabka uu jirkiisu yahay. waayaha aan intaas uga baxno arrinta Michael Jackson oo aan gudaha u galno mowduuceena. shaki kuma jiro in xilligan aan noolnahay baraha bulshadu yihiin awood aan la iska indhatiri karin oo jaangoyn karta qaab fakarka iyo halbeegyada qofka iyo guud ahaanba mujtamaca. qofku wuxuu isku dayaa inta badan inuu ku dhex milmo oo isku ekaysiiyo bulshada uu la nool yahay markaas. inta badan halbeegyada mujtamaca ayaa jiheeya go'aamada shakhsiga ah. marka qofku wuxuu isku dayaa qaabka quruxda looga yaqaan mujtamacaas iyo baraha bulshada inuu jirkiisa ka dhigo. taas ayaana dadka qayb ka mid ah waxay ku riixaysaa in ay jirkooda bedelaan oo qalliino isqurxin ah isku sameeyaan, iyagoona ku kalsoonayn qaab abuurka jirkooda, raadinayana dhammaystirnaan iyo qanaaco aysan weligood gaarayn si walba oo ay jirkooda u bedelaan. sida ay xaqiijisay daraasad gabdhaha Carbeed ee da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 17 ayaa in sanka lagu sameeyo qalliin isqurxin ah ama in indhaha baalashooda la waaweynaysto ay aad ugu badan tahay. sidoo kale daraasadan ayaa sheegtay in go'aan qaadashada markii ay daamankooda ku durayaan irbadda botokiska ee daamanka waaweynaysa ay go'aan qaadashada la weyneen oo ay ula mid tahay sida in ay safar dalxiis aadayaan oo kale. waxaa lagu qiyaasaa qalliinadii isqurxinta ahaa ee sanadkii 2015 lagu dhex sameeyay waddanka Mareykanka oo kaliya inay gaarayeen 10 milyan oo qalliin. sidoo kale daraasad soo saaray ayaa waxay cadaysay in waddanka Koonfurta Korea dumarka sii galaya da'da sodomeeyada ay 60% isku sameeyaan qalliino isqurxin ah, halka dumarka da'da 20-yada galay ay 40% isku sameeyeen qalliino isqurxin ah. dumarka ayaa u badan in ay jirkooda ku sameeyaan qalliinada isqurxinta ah markii la barbar dhigo ragga oo 85% qalliinada isqurxinta ah ee la sameeyo dumarka ayaa lagu sameeyaa. dhanka kale, dad badan ayaa qalliinada isqurxinta ah u sameeya in isku ekaysiiyaan qof mashhuur ah oo caan ah ama fanaan ha ahaado ama ciyaartooy ama qof kale.
adduunya waxaan ku noolnahay qiimeyn iyo qadarin la siinayo qofka madharkiisa iyo muuqiisa kore oo kaliya. qalliinada isqurxinta ah ma dadka hantida haysta oo kaliya ayaa isku sameeya? waagii hore qalliinadan waxaa isku sameyn jiray dadka hantiilayaasha ah iyo dabaqada sare oo kaliya, balse hadda xaaladdu saa waa ka duwan tahay. bal aan aadno laba wadan oo carbeed, waa Masar iyo Yemen. warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters ayay waxay ciwaan uga dhigtay Masaari dabaqada hoose ah ayaa waxay isku sameynayaan qalliino isqurxin ah iyagoo rajaynaya in ay nolol wanaagsan u horseedo arrintaas. warbixintan ayaa waxaa lagu dhex sheegay in dadkan aan waxba haysan haddana isku sameynaya qalliinada isqurxinta ah ay doonayaan inay siyaadiyaan fursadda ay ku guursan karaan ama shaqo ku heli karaan. dadkan ayaa inta badan taga xarumo qalliimadaas lagu sameeyo oo aan wax ruqsad ah haysan, ama waxay tagaan isbitaallo ay tababar ku sameeyaan ardada barta qalliinada isqurxinta. deedna qayb badan oo ka mid ah dadkaas qalliinada lagu sameeyo way fashilmaan, oo halkii ay qurux raadinayeen waxay la soo noqdaan foolxumo iyo qaab muuqaalkooda oo bedelma. haddana aan aadno halkaas iyo wadanka Yemen. wadanka Yemen oo in ka badan 80% shacabkiisu lagu tilmaamo in ay la nool yihiin faqri muddo 6 sano ka badanna ka socdaan dagaalo, ayaa haddana suuqa qalliinada isqurxinta ah xawli ku socda. sanadkii 2019 oo kaliya ilaa iyo 3000 oo qalliin isqurxin ah ayaa lagu dhex sameeyay wadanka Yemen. kansarka iyo qalliinada isqurxinta, sida ay ka digeen mas'uuliyiinta caafimaadka Mareykanka, waxaa la arkay waayadii dambe nooc kansar oo dhif iyo naadir ah, kaasoo inta badan ku dhaca dumarka qalliinada isqurxinta isaga sameeya naasaha. sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, qalabka ay dumarku gashtaan naasaha si ay u waaweyneeyaan ayaa waxay sababaan kansar ku dhaca dhiigga. hay-adda cunooyinka iyo daawooyinka wadanka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in 30,000 ee dumar ah ee qalliin isqurxin isaga sameeya naasaha ay 3,800 oo ka mid ah uu ku dhacay kansarkan. sanadkii 2018 8 dumar ah ayaa u dhintay kansarka naasaha kadib markii ay iskaga sameeyeen qalliin isqurxin ah. waayahay, waa kuwee wadamada ugu badan ee dadkoodu isku sameeyaan qalliinada isqurxinta ah? sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee qalliinada isqurxinta ah tirakooba, sanadkii 2015 20% ayay siyaadeen in la isku sameeyo qalliinada isqurxinta ah. sidoo kale sanadkii 2019 in ka badan 13 milyan oo qalliino isqurxin ah ayaa ka dhacay dunida daafaheeda. wadanka Brazil wuxuu noqday wadanka ugu badan ee la isku sameeyo qalliinada isqurxinta ah, oo 1 milyan iyo bar qalliino isqurxin ah ayaa ka dhacay. Mareykanka ayaa kaalinta labaad ku jira oo isna 1 milyan iyo 300 oo kun oo jeer ayaa qalliin isqurxin ah la isku sameeyay. kaalinta saddexaad waxaa ku jira wadanka Mexico oo in ka badan 5 milyan jeer ayaa qalliino isqurxin ah la isku sameeyay. Ruushka, Hindiya iyo Turkiga ayaa iyaguna kaalmaha afaraad, shanaad iyo lixaad ku kala jira. qalliinada isqurxinta ee ugu badan ee la isku sameeyo waa kan ay dumarku naasaha ku waaweynayaan. waa sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee aadka ula socda qalliinada isqurxinta ah ee la isku sameeyo ee dunida daafaheeda ka dhaca. qalliinka labaad waa dufan iska rididda, ama in dadka cayilan ay iska nusqaamiyaan cayilka iyo dufanka badan. kan saddexaadna waa qalliinada isqurxinta ah ee caloosha la isaga jaro.